Habeen wanaagsan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. In the name of God, the most gracious, most merciful. Mahmahba waxay tiri booraan hodamo ha qodin haddaad qodana ha dheerayn ku dhici doontaa mooye. Ninkii xasan sheekh oo lacagtii laga gooyo beenta ku qoran jiray dadka Soomaalida ee Muqdisho iyo reeraheeda degan lacagtii la siin jiray qaxootiga lagu siin jiray uu ka dhargay uu bangiyada dhigtay kuwii askarta la siin jiray iyo wixii kalena waa lagu ogaado waa laga qabtay waa laga gooyay lacagtii nimankii askarta ahaa ee u shaqayn jiray waddankiisa Soomaaliya waan ka hadlayaa ayaa ogaaday ninkii tuugadii oo lacagtii ka go'day oo doonaya imika inay dilaan ninkii xasan sheekh oo doonaya inuu baxsado oo ingiriiska ku baxsado uu deganaan jiray baasaboor ingiriis oo haystaa ku halkan hadduu noogu yimaado halkan baanu ku xidhaynaa waxaa la yidhi tuugow weligaa marka lagu qabto unbaa kuu daran sheeko kalena waan idin hayaa waxaa labadii xaqdarrada ku saaxiibtaa xaqi ku celoobaan ninkii dembiga intuu ka horiyey meel kastaba Somaliland dembiga u horiyey ee xaggaa u cararay Masar ee xaggaa u cararay Eritrea badaynu ka qabanaynaa Somaliland baynu qabanaynaa balaa wixii bay ku ogaadeen kuwiina waa kii soo kaxaystay Ethiopiankii ee geystay Muqdisho nimankii Eritreanka nimanka Masar caradii qabatay iminka waxay dhahan waxaanu la heshiinaa Somaliland ninkii xasan sheekh oo meel kasta kaga soo gubanayso haddaad wanaag samaysid wanaag weligii u joogaya haddaad xumaan samaysana meel kasta way kugu soo gubanaysaa iminka meel cirka iyo dhulka meelu xasan sheekh u cararo u garan waayey walle anigu calankaa iga dambeeyo mooyaane inaanan mid kala waarayn ayaan u malaynayaa